السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا كحرن قناة كان أرضاغ فيلم هذا كسر هذا فيلم عصب أو كوبن فيلم كأنه ما أنت سوكو بدونه وفيلم لقوا مقعابه The Rise of the Planet of Apes أو صوب حيسنة كل لبكون يكوبي طبعا فضلا هدي أنا هرغمي ده هنا أصحابته سبسكرايب كنو ساري فضلا نقول شرف سبسكرايب Rodman oo ah saynisyahan ka tirsan shirkad ku taala San Francisco oo lagu magacaabo Genesis ayaa ku tijaabinaya daawada fayraska ALZ-112 daanyeerada si uu dawo ugu helo cudurka Alzheimer's. ALZ-112 waxaa la siinayaa daanyeerad lagu magacaabo Bright Eyes taas oo si weyn u kordhinaysa garaadkeeda. Si kastaba ha ahaatee inta lagu guda jiro soo bandhigida Will ee daroogada, Bright Eyes ayaa si qasab ah lagaga soo saaraya qafiskeeda waxayna ku kacaysaa oo sameysay fowdo waana la dilay. Maamulaha Will ee Stephen Jacobs ayaa joojiyay mashruuca wuxuuna amray in daanyeerada si dhameystiran loo dilo. Si kastaba ha ahaatee kaaliyaha Will ee Robert Franklin ayaa ogaaday in sababta fowdada Bright Eyes ay tahay in dhawaan ay dhashay ilmo yar. Will ayaa aqbalay inuu qaado daanyeerka yar kaas oo ku magacaabay Caesar. Will wuxuu ogaan doonaa in Caesar uu dhaxlay garaadka hooyadii 3 sano kadib. Will waxa uu soo kaxaynayaa Caesar kaynta Redwood. Dhanka kale Will waxa uu daaweynayaa aabihiis Charles oo la dhibaataysan cudurka ilowsiyaha ee Alzheimer's waxaana uu ku mudayaa ALZ-112 taas oo muuqata inay dib u soo celinayso awoodiisa garashada. 5 sano kadib markii Caesar uu gaaray qaangaarnimada oo uu arko ay ku xiran xadhiga sidiisa oo kale wuxuu su'aal ka keenayaa cidda uu yahay wuxuuna asalkiisa ka baranayaa Will. dhanka kale xaaladda ilowshiyeed ee Charles way soo noqotay markii ay maadadii fayraska ahayd waxba ka qaban weydo. Caesar wuxuu dhaawacay dariskiisa isagoo difaacaya Charles. natiijo ahaan waxaa la geliyay hoyga daanyeerada halkaas oo si naxariis darro ah ay la dhaqmaan daanyeerada kale iyo madaxa ilaaliyaha oo lagu magacaabo Dodge London. Caesar wuxuu bartay sida loo furo qafiskiisa isagoo si bilaash ah u galay aagga la wadaago isagoo kaashanaya gorilla la yiraahdo Bug. wuxuu ka hor yimid daanyeerka meesha ugu sarreeya oo loo yaqaan Rocket wuxuuna dagaal kadib kala wareegayaa jagadaas. dhanka kale Jacob wuxuu daaha ka qaadayaa horumarinta gaas ka xoog badan nooca daawada ALZ-112 oo lagu magacaabo ALZ-113. Willna waxa uu sheegayaa inay sidoo kale hagaajin karto garaadka. waxa uu daawada geynayaa gurigiisa si uu isugu dayo inuu badbaadiyo aabihiis laakiin Charles wuu diiday daaweynta dheeraadka ah waxaana uu dhintay habeenkii. kadib markii la isku dayay in lagu tijaabiyo daawada shaybaarka daanyeer lagu magacaabo Cooper, Franklin waxa uu qaatay hawada ALZ-113 wuuna xanuunsanayaa. isagoo isku dayay inuu ugu tago Will gurigiisa una digo waxa uu dhiig ku hindhisayaa dariskooda. Franklin ayaa markii dambe la helay isagoo meyd ah. Will wuxuu isku dayayaa inuu soo ceshado Caesar laakiin daanyeerka ayaa diiday inuu guriga la tago. taa beddelkeeda waxa uu ka baxsaday xarunta oo ku laabtay guriga Will halkaas oo ka qaatay qasacadaha ay ku jiraan gaaska ALZ-113. marka uu soo noqdo Caesar waxa uu sii deynayaa gaaska taasina waxay u ogolaanaysaa inay kor u qaado garaadka daanyeerada kale. marka ilaaliyihii meesha uu isku dayo inuu dib ugu soo celiyo qafiskiisa, Caesar ayaa hadlay markii ugu horeysay isaga oo qaylinaya kadibna si aan ula kac ahayn isaga u dilay. daanyeerada ayaa ka cararaya xarunta siina deynaya daanyeero kale oo ku soo hadhay isla goobtaasi iyo kuwa kale oo badan oo ay ka sii deynayaan beerta xayawaanka ee San Francisco. dagaal ayaa dhacay markii ciidanka daanyeeradu ay ku dagaalameen meel ay boolisku xidheen oo ku taala buundada Golden Gate Bridge si ay ugu baxsadaan kaynta Redwood. Bug ayaa naftiisa u huray si uu u badbaadiyo Caesar isagoo ku booday helicopterka uu Jacob saaran yahay. helicopterka ayaa ku dul dhacay buundada sidaasna waxaa ku dhaawacmay Jacobs. waxaa dilaya oo dhameystiraya daanyeerka lagu magacaabi jiray Cooper. markii daanyeerkii ay soo galeen kaynta, Will ayaa u yimid oo uga digay Caesar in dadku ay ugaarsan doonaan wuxuuna ka baryayaa inuu kula noqdo gurigoodii. isaga oo ka jawaabaya Caesar ayaa isku duubay oo yidhi waxa aan joogaa hoygaygii. Will waxa uu sidan ku ogaanayaa in tani ay runtii tahay macasalaameyntoodii ugu dambeysay wuxuuna ixtiraamayaa rabitaanka Caesar. daanyeerada ayaa galaya qaab nololeedkooda cusub ee kaynta. dhammaadka filimka Will dariskiisa oo hadda cudurka ka qaaday hindhisadii Franklin ayaa la inadsay isagoo shaqada u sii baxaya ahna duuliye diyaaradeed. waxa uu imanayaa garoonka caalamiga ah ee San Francisco si uu u bilaabo duulimaadkiisa Paris. sankiisa waxa uu bilaabayaa inuu dhiigo oo ku daato dhulka. sawir garaaf ah ayaa ina tusaya raadraaca faafitaanka fayraska kaasi oo baabi'inaya dadka adduunka oo dhan isaga oo raacaya dariiqyada duulimaadyada caalamiga ah. filimkani sidaas ayuu ku dhamaaday. haddii aad doonaysid inaad daawatid filimo kale oo la soo koobay oo af Soomaali ah fadlan ha ilmaamin inaad like nagu caawisid si uu gaaro asxaab kale oo badan. subscribe na nagu caawi haddii aan hore uga mid ahayn asxaabta ku xidhan kanaalkan.